waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo muddadii howlgalku socday hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa waxayna ku guulaysteen badbaadinta dadka in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan loola waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee ku beegnaa saacadihii hore ee weerarku uu dhacay weerarkaas ku racni uu dhacay qof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka waxaa ummadda Soomaaliyeed inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan waxaan tacsi u dirayaa dadkii shacabka ahaa iyo kuwii askarta ahaa iyo shuhaadada ahaa